بسم الله الرحمن الرحيم كل معن walaalyaal waa walaashin Faadumo idin leh mar kale sheekadan xiisaha badneed ee Maxamed Biyool qaybteedii labaad sida ayuu in muddo ah ku shaqaysanayay Maxamed ilaa laga gaaro maalin in uu booska kala baxo wasiirkii loo diray oo keenay goobta shaqada waxa sababay Maxamed ayaa amiirka u dhawaaday oo ay isfahmeen amiirka qalbigiisa boos weyn ayuu ku yeeshay Maxamed maalintii dambe markii uu shaqada dhameeyay ayaa waxa Maxamed soo daba kacay wasiirkii si uu u kala fogeeyo isaguna diro isaga iyo amiirka oo waxa uu ku yiri Maxamed oo amiirka waxa uu ka cabanaya urka ka soo baxaya afkaaga waa uu naxay Maxamed waxa uu ku yiri wasiirkii alla maxaan sameeyaa si uu u dhibsan neefta afkayga ka imaanaysa wasiirkii ayaa ku jawaabay Maxamed markasta oo aad imaanaysa xafiiska afkaaga mar ku soo xir si uu amiirka urka afkaaga u dareemin waayahay wasiir waan sameeynaya ayuu Maxamed la soo booday isagoo u maleynaya hadalka wasiirka inuu sax yahay balse ma oga inuu bohol u qadayo si uu ugu dhaco subaxii markii uu soo shaqo tagay Maxamed afkiisa mara ayuu ku soo xiray si uu u dareemin amiirka urka afkiisa ka soo baxaya amiirku waa uu la yaabay sababta keentay in uu Maxamed afka u soo xirto laakiin ma uusan weydiin sababta keentay inuu afka xirto Maxamed muddo ayuu ku shaqaynayay isagoo afka maro ugu xiran tahay ilaa la gaaro maalin uu amiirku weydiiyay wasiirkiisa sababta keentay Maxamed inuu afka xirto wasiirkii oo jaanis weyn u arka su'aasha la weydiiyay ayaa waxa uu dhahay amiir waxaan ka baqayaa haddii aan kuu sheego in aad madaxa iga goyso amiirkii waxa uu dhahay maya ma ka goynayo madaxa mana sameynay arintaas ee ii sheeg waxa jira wasiirkii waxa uu dhahay Maxamed waxa uu dhibsaday urka afkaaga ka soo baxaya boqorkaygiyo amiirkii waa uu isbedelay isagoo oo dhan waxa uu noqday si kale waxa uu aaday gurigiisii waxa uu u sheegay xaaskiisii arinta dhacday waxay dhahday xaaskiisii amiirka waa kuma qofka ay naftiisu siinayso in uu waxa sameeyo ama ku dhaco waa in biri madaxa laga jiraa Maxamed si cid kasta oo wax la mid ah sameyn lahayd ay ugu noqoto tusaale iyo waano waxa uu ugu jawaabay amiirkii waa ra'yi wanaagsan subaxii markii la gaaray oo uu xafiiska yimid amiirka waxa uu u yeeray waardiyihiisa wuxuuna ku yiri qofka aad aragtid oo ka soo baxay xafiiskayga isagoo ubax gacanta ku sita madaxiisa gooy oo dil subaxii ayuu yimid Maxamed sidii caadada ahayd oo waa uu soo shaqo galay biyo qaybintiisii ayuu iska galay iyo waraabintii dadka xafiiska joogay markii la gaaray waqtigii uu baxayay oo shaqadiisa ay dhamaatay amiirka ayaa u yeeray wuxuuna siiyay ubax wuxuuna ku dhahay waa hadiyad aniga aan ku siiyay ee qaado markii uu bixi rabay waxa la kulmay wasiirkii waxa uu ku dhahay yaa ku siiyay ubaxa waxa uu ku jawaabay Maxamed waxa siiyay amiirka wasiirkii oo u maleeyay in ubaxa kalgacayl iyo wanaag loo siiyay ayaa yiri aniga isii leen aniga wasiir ah oo xaq u leh oo ka mudane Maxamed waa uu siiyay ubaxii wasiirka waana uu iska baxay waardiyii la balamay ayaa arkay wasiirka oo gacanta ubax ku sita oo ka soo baxay xafiiska amiirka madaxa ayuuna ka gooyay oo waa uu dilay subaxii waxa yimaaday biyoolii waxa uu sida caadada ahayd u guda galay shaqadiisa waxaana uu bilaabay waraabinta dadka jooga xafiiska amiirka markii uu dhameeyay shaqadiisa ayaa waxa arkay amiirkii wuuna yaabay leen waxa uu aamini waayay inuu nool yahay oo wuxuu mooday inuu dhintay oo madaxa laga gooyay amiirkii ayaa weydiiyay aaway u bixiyay aan ku siiyay waxa uu Maxamed Biyoole ku jawaabay wasiirka ayaa iga qaatay oo wuxuu dhahay ma u qalantid aniga isii ubaxa ana xaq u leh oo u qalma amiirkii ayaa waxa uu weydiiyay maxaa sabab marada afka kuugu duuban waxa uu ugu jawaabay wasiirkaaga ayaa igu dhahay amiirka waxa uu dhibsaday urka afkaaga ka soo baxaya wasiirka ayaanay amray inaan marada ku xirto afka si aadan u dareemin urka waa uu qoslay amiirkii waxa uu ku dhahay runtaa way isaga ayaa ka mudan niyadda xun iyo niyadda saafida ah meel kuma wada kulmaan marka waxa tahay qof nadiif ah ilaah ayaa ku xiftanaya dadka oo dhanna waa ay ku jeclaanayaan nabiga naxariisi nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa la weydiiyay dadka yaa ugu fiican wuxuuna ku jawaabay qofka niyadda saafida ah leh carabkiisana runtii yaqaan Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa qod qiyaamaha qodin hadaad qodana adeereen ku dhici doonta lama oge taawadaheena qiimaha mudanow halkaas ayay ku dhamaatay sheekadii Maxamed Biyoole waa inoo iyo mar kale iyo kulanti dambe oo xiiso leh